qaalo waxaad kusoo dhawaataa Sama TV. kulanti wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada Sama TV waa Somali American Media.org oo maanta idin soo gudbinaysa barnaamijkii Sabtida ah ee live-ka aad uga barateen inuu ka baxo maalmaha Sabtida ah. haddaba daawadayaal barnaamijkan oo maanta aan ku soo qaadan doono waxyaabo kala duwan ayaa ugu horreyntii waxaanu kaga hadli doonaa barnaamijkii isboortiga iyo barnaamijkii adaa lagu dhahaa oo soo diyaarin jiray Cabdixakiim BR. waxaa kaloo aan ku soo qaadan doonaa barnaamijkii dhinaca fanka maanta barnaamij xiiso leh ayaad ka daawan doontaan Sama TV. YouTube-ka barta aan ku leenahay waa Sama TV mn.org. haddaba barnaamijkan maanta waxaa igala qayb galaya Cabdirasaaq Cali Boos oo isagu Sama TV u qaabilsan dhinaca isboortiga soona duubay barnaamij isboortiga koobkii 2012 ee ka dhacay magaalada Ohio gobolka Ohio ee Columbus. haddaba barnaamijkan bal marka hore inta aanan u guda galin dhinaca isboortiga oo aan filayo inuu mid aad u xiiso badan yahay bal Cabdirasaaq Cali Boos aan ka wareysto waxyaabihii uu ku soo arkay Ohio Columbus. Cabdirasaaq ku soo dhawow Sama TV. aad iyo aad mahadsan tahay mudane awil waxa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan maanta kala soo qayb galo ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota ku dhaqan aan halkan kala hadlo dhacdadii xiisaha badnayd ee ciyaaraha ee ka dhacday gobolka Ohio ee Soomaalidu ku nooshahay. sideedaba Ohio sanad walba waxa lagu qabtaa koob kubadda cagta ah waxaana isugu taga dad badan oo ka kala yimaada gobolada Mareykanka oo dhan iyo Canada. koobkaas waxaa loogu talagalay ugu horeyn in Soomaalidu isku barato bahda isboortiga isugu yimaadaan maxaan ku iraahdaa ciyaalku maadaama ay wadankan caruuro fara badan kharimeen ay dhanka isboortiga lagu madadaaliyo. wallahi aad iyo aad u xiiso badnaa waxaanu ka qayb galnay koobkii guga xilliga la yiraahdo ama xilliga spring break lagu jiro iskuulada ayaan ka qayb galay xilliga roobaadka ama guga loo yaqaano. marka koobkaas wuxuu ahaa koob aad iyo aad u xiiso badan. waxaan marka ugu horeysa ammaan dheeraad u jeedin lahaa shacbi weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Ohio oo marti aad iyo aad u fara badan isugu yimaadeen ciyaartooygii hore ee Soomaaliya hadday ahaan lahayn marti ka kala timi gobolada oo dhan ilaa Yurub ilaa meel walba la isugu yimid aad iyo aad u xiiso badnaa. Cabdirasaaq waxaad ka tagtay Minneapolis Minnesota waxaad tagtay Ohio dabcan Soomaali badan ayaa degan waxyaabaha aad ku soo aragtay Ohio bal adoo soo koobay. wallahi ugu horeyn waxa aan ku soo arkay waxa kamid ahaa Soomaalidii oo dhan oo wada isboortisa. waxaan isooran lahaa Soomaalidu midda xalkeeda dhinac kale laga raadinay hadii isboortiga lagu eego midoobi lahayn baan marinaya waayo Soomaalidii oo dadkii soo wada dhaweynaya maxaan ku raada hoteeladii dadku deganaayeen martida oo la isdhaafayo dhinaca si fiican bal soo dhaweynaya aad iyo aad waxaan filayaa bal markii halka aad tagteen barnaamijka isboortiga ayaa bilowday ciyaari ayaa bilowday yaa wada ciyaariyay halkaas waxaa koobka loo dhigay 16 kooxood oo isaga yimid Canada iyo Mareykanka oo dhan 16 kooxood ugu dambeyntii waxaa isu soo baxay 2 kooxood koox ka timi Minnesota oo gobolkan ka tagay oo la yiraahdo TC Stars oo ah kooxa aadka looga yaqaan North America oo ciyaartooy fara badan oo ciyaaraan. marka waxa wada ciyaaraya waa Soomaali kaliya Soomaali kaliya 16 kooxood waxay ka kala socdeen America oo dhan waqooyiga Mareykanka oo dhan waa gartay marka koob waxaana lagu ciyaarayay indoor maadaama xilliga qaboobaha gobolada lagu jiro oo aan ma aragtay dibad lagu ciyaari karin. marka Cabdirasaaq baladan ku weydiiyo ma wax sanad kasta la qabtaaba mise waa wax marmar uun la qabto. wallahi sideedaba horta waxaa jira koobo badan oo North America lagu qabto koobka Canada lagu qabto oo kale xilliga samarka ama xagaaga loo yaqaano oo July kasta dhaca waa 20 jirsaday waa gartay oo caruurtii maalintii la bilaabay dhalatay hadda qayb kamid ah ciyaarta waa gartay. waxaa jira koobkan Ohio lagu qabto iyo xilliga guga iyo koob isla samarka lagu qabto Minnesota oo iyaduna Soomaalidu ku badan tahay iyaguna waa 12 jirsaneed. marka waxa ay suura gashay koobkii oo 12 jirsaday inaan sanadka 2012 ka qayb galo. waa gartay dareenka dhalinyarada isboortiga sidee buu ahaa. wallahi dhalinyarada isboortigu aad bay u faraxsanaayeen maxaan ku raada waayo wajiyo cusub ayaa isbaranayay dad fara badan ayaa isdhexgalayay ciyaarta xiisa garoonka waa la soo buuxinay dadku waa qaylinay kulli waa la daawan doonaa waxyaabi aan ku soo aragnay waxaan anigu ka sheegi karo af ma aha laakiin dadkii bini'aadanku waxay yiraahdaan aragtida ba ka muhiimsan ishu waa macallin. waa gartay Cabdirasaaq labada kooxood oo hadda wada ciyaaraysa oo finalka isugu yimi waa kuwa waa koox ka timid Tennessee magaalada Nashville oo koox aad iyo aad farsamadu u sareysay laakiin waxa u babac dhigay oo ciyaartii 4-2 ku qoosiyay kooxda
TC Stars ee ka tagtay Minnesota waa Twin City inkastoo aan ahaa wariye dhexdhexaad laakiin haddana hoosta waxaan kala cabdirasaaq dabcan markay ciyaartii maado labada kooxood kulliba wariyanimadaada markaad fiiriso iyo xiisaha ay leedahay ciyaarta kulliba dareenkaagu waxa ku qaadaya kooxda ciyaarta fiican in la jirto ama koox aad xiiseysaba inay jirtaba marka ma jirtaa koox aad u xiiseynaysa marka aan ka tagno dhinaca wariyanimada ugu horeyntii kooxda TC waa kooxda dhalinyaro ah TC waxay ka socotay gobolka Minnesota waa Twin City Stars baa la yiraahdaa waa magaaladooyinka mataanaha xidigahoodii waana dhalinyaro daadooda aad u yartahay weeyaan waxay maamulkooda ayaa marka hore aad i cajabiyay sababtoo ah coachkooda Maxamed Carab ninka la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa Cabdi Shukri oo isna coachkooda kamid ah dhalinyaro fara badan ayaa gacanta ku haysa kooxdaas waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid ah sida ay u train gareeyeen kooxdaas iyo inay xitaa waalidiintood la xiriiraan oo macnaha ay ciyaalka follow up ku sameeyaan oo og yihiin haddii iskuulka aadaan iyo ay yiraahdaan kooxda kamid noqon maysid oo macnaha taasina waxay ku tusay ciyaaladii inay iskuulka si fiican u dhamaysanayaan jaamacadihii galayaan qaar ay kooxihii state-ka qaar u ciyaaraan qaar waxay u ciyaaraan US-ka marka dhalinyarada ciyaaraysa cabdirasaaqow da'adoodu intee bay u dhaxaysay da'adoodu waxa weeye waa 20 ilaa 16 inta u dhaxaysa ama 22 hadii la yiraahdo waa markii dhalinyaradu ugu orodka badan tahay ma daala noocaas cabdirasaaq marka adigu da'da jirta ka waran markaan da'da jiray aniga aad u dheereeyay maahay dirta laga boodi jiray aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal waxba yaanaan hadal idinku daalin barnaamijkii sportiga iyo dhanka iyo Ohio uu tagay cabdirasaaq cali boos daawasho wacan cabdikariin waxaan doonayaa barnaamijkii sportiga dad badan baa sportiga aad u xiiseeyay moogta cabdirasaaq aad iyo aad marka sportiguna waa wax dadka niyadiisa iyo caafimaad ahaan u fiican waa caafimaad ku fiican dadkana mideeya anigu hadeerba koox sheegan maayo laakiin kooxdii badashaan la jiraa ya Cobland dhici maayo ma Cobland dhici maayo waa jira dad badan noocaas waxaan ku soo qaadaynaa gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay ama aan dhahay toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee guud kasta lagu qabto North America sanadkan oo ahay Ohio nasiib u heshay in tartankaasi lagu qabto ayaa waxaa ka soo qayb galay tartankaasi dhinaca kubadda cagta ilaa iyo 16 kooxood oo Soomaaliya haddaba hanaankii loo qabtay tartankaasi iyo cidii ku guuleysatay ayaa waxaan si toos ah idinku gudbin doonaa wariyaheena dhinaca ciyaaraha inoo qaabilsan oo isagu goobtaasi lagu herdamayo jooga cabdirasaaq cali boos ayaan idin gudbinayaa oo Ohio jooga iyo farsamo yaqaan cabdiyare gurxan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wariye cali xaraare waxaanu maanta ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena sportiga koobkii xilliga guga ama springka loo yaqaano ee ka dhaca gobolka Ohio ee Soomaalida ku nooshahay koobkaas ayaa la qabtay sanadkii 12aad koobkaas waxaa isugu yimid 16 kooxood oo ka kala yimid dacalada North America oo dhan hadday aan lahayd gobolada Mareykanka oo dhan iyo hadday aan lahayd Canada koobkaas barnaamijkan oo diyaarinay oo faahfaahsan ayaanu idin soo gudbin doonaa ee ku soo dhawaada waxaa lagu soo bandhigay xaflad aad iyo aad u qurux badan xilligii la furayay ciyaarihii koobka lagu qabto Ohio sanad walba xilliga guga ee ay Soomaalidu isugu timaado ku nool dalka Mareykanka guud ahaan iyo waliba Canada waxaa kale oo xafladda ka soo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda ku meel gaarka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si rasmi ah halkaa uga qayb qaatay waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo fara badan oo aad iyo aad maanta waxaanu joognaa garoonka weyn ee loo yaqaano Sportsfield ee ku yaala Columbus Ohio waa garoon dedan oo lagu ciyaaro xilliga spring ama xilliga guga loo yaqaano oo sanad walba lagu qabto Soomaalida ku nool waqooyiga America oo dhan hadday aan lahayd dalka Mareykanka isteediyadiisa kala duwan iyo hadday ahaan lahayd Canada waxa halkan isku yimid kooxo fara badan oo ka yimid gobolada Mareykanka oo dhan iyo Canada koobkina maanta ayuu si official u bilaaban doonaa wuxuuna ka dhacayaa garoonka dedan ee Sportsfield ee ku yaala Columbus Ohio koobkan oo la qabanayo sanadkii 12aad wuxuu bilowday koobkan markii taariikhdu ahayd 2000 sanadku markuu ahaa maantana waxaa la qabanayaa markii 12aad waxaana koobkan ka soo qayb galay kooxo aad u fara badan hadda ciyaarta ugu horeysay maanta waxay dhexmari doontaa labada kooxood ee kala midnimo oo ah koox ka socota Minnesota iyo kooxda Eagles ee Ohio oo labaduba kala group B waxa kale iyaguna isla waqtiga ciyaari doonto qaybta kale ee garoonka kale ka ciyaari doonta kooxda Hillaac Ohio iyo Arizona All Stars oo iyaguna ka yimid gobolka Arizona Hillaac Ohio waxay ka timid magaalada Ohio labada kooxood waxaana sidaas macnaheedu tahay laba kooxood oo home ah oo wada Ohio ka socda oo kala ah Eagles Ohio
iyo Hillaac Ohio ayaa waxay la ciyaari doonaan laba kooxood oo ka kala yimid laba gobol oo Mareykanka ah oo kala ah midnimo Minnesota iyo kooxda Hillaac oo la ciyaari doonta Arizona All Stars bilaabatay ciyaartii dhex maraysay kooxda midnimo Minnesota kooxda midnimo Minnesota waa kooxda ku ciyaaraysa funaanada cad iyo surweelka guduudan halka kooxda kale intana oo la ciyaaraysana ay yihiin Eagles Ohio waa wiilasha ku ciyaaraya funaanada buluuga iyo surweelka buluuga ciyaartuna waxay maraysaa eber waana qaybta koowaad ciyaarta wali waxaanu joognaa garoonkii Sportsfield ee ku yaala Columbus Ohio oo ciyaaraha si toos loogu qabtay sanadkan Spring Tournament oo sanad walba lagu qabto gobolka Ohio ee dalka Mareykanka khaasatan magaalada Columbus waxa ciyaarta ku xigta ay dhex mari doontaa labada kooxood ee kala ah Twin City Stars oo koox Minnesota ka timaada iyo Samba team oo from Ohio marka hadda halkan waxa calaamiteynaya oo jimicsanaya kooxda Twin City Stars marka kooxda ayaan ciyaartooyda coachkooda la kulmi doonaa haddan waxaan la kulmaynaa tababaraha aadka looga yaqaan North America iyo Soomaaliya oo dhan Maxamed Arab oo wiilka dhalinyarada dhinaciga midig taagan oo kooxda TC gacanta ku haya tababarkoodii marka maantana waxa ay kooxdu ka qayb galaysaa koobka ka dhacaya gobolkan Ohio Spring Tournament ku soo dhaw Maxamed Arab TV-ga Home Cable TV albaas waa maasanta waxaan ku weydiiyay maanta waxaad la ciyaari doontaa koox gobolkan aad martida ku tihiin oo Ohio la yiraahdo Simba team marka maxaad filaysaa ciyaartaas la dhalinyarada aad u fiican weeyaan waxaana coach gareeyo ciyaartooy hore aan isku ciyaari jirnay Maxamed Faarax ciyaartooy aad loogu shaqeeyo ciyaartooy age-kayga la eg weeyaan oo maarad groupkan ku aanaado aan tababaro marka challenge oo aan ku arko shaqadan soo qabanaynay inta gaarsiisan tahay weeyaan oo maarad imtixaan fiican aan mari doono weeyaan insha Allah laakiin maadaama aad sheegtay coachka kooxda Simba inaad nin aad istaqaaneen uu yahay ciyaartooydu si fiican rajadiina maxay tahay ma 50-50 ba ma badinaysaan maxay rajadiina tahay teamka awoodiisa aad qiyaastay taas maaragtay resultiga wax aan control karna ma ahan mid alla u taalo weeyaan laakiin effortiga maaragtay emotionkeena inaan controlna is objectivekeena ama goalkeena maantaas uu yahay waa mahadsantahay barnaamijku waa cad iyo madow sida uu inoo sheegay tababaruhu marka waa arki doonaa ciyaartaas waxay ku dhammaato waxaa kale oo dhinacan taagan goolhayaha kooxda TC ninka loo yaqaana cabdiqani ku soo dhawaad aad iyo aad baad mahadsantahay ka waran maanta ciyaarta kooxda ka soo horjeeda horey ma la ciyaartay maxaad ka taqaanaa ciyaartooyga oo ciyaaraya wax khibrada ciyaartooyga ma lihi waa koox imika sida macallinkaygu sheegay la asaasay laakiin mar walba waxaan diyaar u nahay inaanu aad iyo aad wixii macallinkaygu soo biray inaanu dadka tusnoo muujino wax ciyaartooyga kooxda u ciyaaro oo aad iskaga ilaalinaysid ma jirta maadaama aad tahay ninka goolhayaha oo aad loo kubadaha inay isagu ku dhammaadaan kubad walba la filayo ay tahay hore isma naqaan laakiin maanta isbaran doonaa waa mahadsanyahay cabdiqani goolhayaha kooxda TC marka insha Allah ciyaarta mar dhow ay bilaabi doonto daqiiqadaha soo socda wixii ka dambeeyana ciyaarta highlight-keeda ayaa daawan doontaan Home Cable TV iyo TV-ga Somali Press TV ee Minnesota laga daawado waa mahadsantiin weli waxaanu joognaa rugta ciyaaraha garoonka dadan ee Sportsfield ee ku yaala Columbus Ohio oo koobkii Springka uu weli ka socdo waxa kale inta kooxaha ka soo qayb galay kamida kooxda loo yaqaano Somali Stars ee ka timaada Wilmer magaalada ku taala ee Minnesota waxaana la joogaa tababaraha kooxda oo loo yaqaano Elias ku soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay waxaan halkan uga faa'iideysanayaa uga mahadcelinayaa dhammaan qabaqabayaasha tartanka oo Ohio ku qabtay waxaan kaloo halkan ka faa'iideysanayaa tacsi uga dirayaa ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen xiriirka isboortiska Soomaaliyeed ee Olombikada iyo kubadda cagta ee Soomaaliya ana bahda isboortiska uga mahadcelinaa sida ay wax walba noogu soo gudbiyaan xagga isboortiska aad ugu mahadsantiin waa mahadsantahay Elias su'aashaan ku weydiinay waxa weeye Columbus Stars kooxda loo yaqaano Ohio ka tirsan waxba fikrad ma ka haystaa ciyaaraheeda ma hadda kor moolo ciyaartooyda wax ka garaysa maxaad maanta ka rajaynaysaa ciyaarta dhici doonta wallahi kubadda waa iska cad iyo madow laakiin Columbus Stars waa igu cusub yihiin laakiin kubadda waxay tahay experience-ga aan isticmaalayo ahana gudoomiye bariga bartamaha Afrika macallin heer qaran ilaa seera soo noqday waxaan rajaynayaa inaan ciyaarwanaha halkaas ku soo badhigno guushan in raacdo insha Allah maadaama aad safar dheer soo gashay waxaad is leedahay halka guulab inaad kula noqoto Wilmer magaalada Minnesota si fiican imaashahana iyo koobka isku xireen koobka sanadkan waxaan leeyahay annaga martii annaga iskale aad baan kugu rajaynayaa inaad Wilmer geysid waxa kale intoo dhinaca naga taagan kabtanka kooxda
Somali Stars ee ka timid Wilmer Master Bakar ku soo dhawo Master Bakar aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta ay na soo dhaweeyeen gudida liigan qaban qaabiyay waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama magaalada Wilmer aan deganahay inaan helno coach aad u muhiimsan oo Soomaaliya waqti ka soo qaatay Mareykan hadda ugu yimid si xooglan aan ku helnay maanta intana keenay iyo anigana qaban qaabada weyn lahaa marka waxaan aad u mahadcelinayaa Ilaah asaga iyo ragii meeshan qaban qaabada alxamdulillah maanta ka war ciyaarta maxaad rajaynaysan guul baan rajaynayaa insha Allah maadaama waxna wada markaa waad mahadsan tahay guul ayaanu rajaynaynaa aad iyo aad mahadsan yihiin weli waxaan ku ciyaartooyga iyo ciyaaro badan fara badan ayaa ka dhici doona garoonka maanta marka waanu u tagi doonaa koox walba waraysiya ayaanu idinka soo qaadi doonaa Cabdirasaaq Cali Boos Home Cable TV waxaa bilowday koobkii waxaana ciyaartii ugu horeysay isku arkay labada kooxood ee Columbus Eagles iyo kooxda midnimo oo ka timaada gobolka Minnesota waxay ciyaartaas ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan dadweyne fara badan ka soo qayb galay maadaama ay koox ka timid gobol kale iyo koox u dhalatay ama ka gobolka lagu qabtay ay isku dhacayeen koobkaas ayaa jawi wanaagsan ku bilowday waxaana ciyaaruhu socdaan si rasmi ah oo waliba xiiso leh ciyaartu aad iyo aad u socotaa waxayna ka socotaa garoonka dadan ee Springfield ee ku yaala Columbus Ohio Mareykanka ciyaarahan oo ay isugu yimaadeen 16 kooxood 16 kooxood ayaa waxay ka kala yimaadeen gobolada Mareykanka oo dhan iyo waliba koox ka timid dalka Canada ee dariska la dalka Mareykanka koobkaas ayaa socon doona muddo 4 maalmood oo qura waxaana guushu ay raaci doontaa kulli koox sidee ay noqotaba waa waxaa gadaasheeda ka muuqda waa kooxda Somali Tigers iyo coachkoodii oo tashanaya ciyaartii daqiiqada yar ayaa ka haray waxa ayna la ciyaari doonaan kooxda Washington DC ka timaada ee loo yaqaan Washington DC FC marka ciyaartaas kooxda Somali Tigers waxay ka timaada Minnesota gobolka Minnesota ee Soomaalidu aad ugu badan tahay waana kooxda ugu koobka badan kooxaha ka ciyaara ee North America oo laga yaqaano dalka Mareykan gudihiisa iyo waliba Canada ba oo ka qayb gasho koob walba marka maanta ciyaarta ay soo bandhigaan waan arki doonaa kooxda Washington DC ayaa iyaguna koox wadooda aad u sareyso oo si fiican isu soo diyaariyay ciyaartooy iyo dad kubadda magac kule ay macallimiin u yihiin lana socdaan marka waa arki doonaa mar dhow waxaan waraysi ka qaadi doonaa tababaraha kooxda Somali Tigers iyo kabtanka kooxda daqiiqadaha soo socda hadeerna waxaanu la taaganahay ciyaartooy kamid ah ciyaartooyga TC Stars ee Minnesota ka yimaada dalka Mareykanka waxaa la yiraahdaa ciyaartooyga dhinaca bidix taagan Cabdirasaaq Yare waa ciyaartooy aad loogu yaqaan North America oo dhan koobab fara badan qaaday waa ciyaartooy ugu koob badan waa ciyaartooyga koox fara badan la ciyaaray waa ciyaartooy sida Nicholas Anelka ama Ibrahimovic marba koox taga oo koobab la qaada marka Cabdirasaaq maanta ciyaartii ugu horeysay ciyaarteen waliba 8 iyo 1 ayaad u dhibteen ka waran ciyaarta see dareemaysa maanta horta wallahi game kastaba waqti uu leeyahay muddo badan aan isku diyaarinayna koobkan inaan imaano wixii ilaahay qarway dhacaan laakiin as a team ayaan wada dheelnay yani waa isla wada shaqeynay basically kooxda kale magaaladaan ka imaadeen annaga safara ka imaadeen waa daalneen so advantage-keena wuxuu ahaa inaan quickly dheelno inaan dhaqso gool gashano saa hadhowtay aan u nasano marka annagana waxaasan samaynaa intee koob ayaad qaaday ku guulaysatay intaad dalka Mareykanka joogtay maadaama adoo yar aad timid oo aad ku kortay dalka Mareykanka wallahi horta koobka qaaday samarka hadda soo dhaafay koobkii waxa qaaday 33aad just championships waayaan oo kooxa la qaaday laakiin koobka aan leeysiiyay ama best defender ama MVP yani ma kaan garan karo laakiin soo far 33 koob qaaday koobkan hadda ku daro koobkii 34aad noqonaa so ilaa Allahu aalim ilaahu laakiin waxaad koobka la qaaday kooxo aad u fara badan wallahi hadda fiiriyo originally 3 kooxa u dheelay kooxa badan ma anoo yar waxa imaaday 13 jir aan joogo community imaaday oo fiican koob badan la qaaday haddana kooxaha North America laga garanayo sida Somali Tigers one of the best teams like North America u imaada la joogay waa la qaaday haddana TC jooga so saddexda club soo mareen saddexda clubna very good clubs waayaan
hadda maxaa is leedahay kooxda TC ma ku retire gareyn doontaa mise kooxo kale koobab kale ka doonan doontaa horta TC passionate maxaa la dhahaa waxaan rajeynayaa inaan ku retire gareeyo someday inaan coach ka noqdo ama assistant coach which seems like head coach inaan ka noqon doono oo macna carab aan bedel doono marka aan hadda asaga naftirkiisa competition kula jiraa aad iyo aad mahadsan tahay cabdirasaaq yare dhinacay waxaa tagan cabdishukri oo isagana tababara ka mid ah kooxda TC ku soo dhow Home Cable TV waa mahadsan tahay wari maanta ciyaar aad u qurux badan baa soo dhigteen dadka aad bay kooxii idinka soo horjeedaan message baa u dirteen in koox walba ay aad idinku diyaar garoodo marka maxaad malaynaysan ciyaarta soo socota iyaad la ciyaari doontaan waxaan la ciyaaraa ciyaarta noogu horeysa Atlanta koox ka timid macallin Giftino wato muhiimadana waxay tahay day by day oo game by game ayaa noo horeeya marka waxaan focus gareynaa gameka markaas joogno maadaama koox badan ay joogaan finalka inta ka horeysa waxaan fiirnaa gameka markaas aan ciyaarayno muhiimadana waxay tahay ciyaartaas aan dheelayno markaas inaan focus gareyno si taas markaa ku inaan tilaado uga fikirnaa haddana macallin Giftin waa macallin aad looga yaqaano isboortiga iyo Soomaalida iyo wax walba waa tababare aad khibradiisu u sareyso marka hadeerna ciyaartiisii daqiiqad ayay soconaysaa marka waxaan u malaynayaa ciyaartaas aad baad u fiirsan doontaan kooxdiisa walaa arrinta annaka laftiina waa soo dadaalnay marka waxaan fiirinaa ciyaarta sida ay ciyaarayaan iyo habka tikniiga ay ciyaarayaan si aan u maaj galno ama uga fahnaano si ay u dheelayaan marka waan ku qasbanaa in ciyaartiisa daawano oo miisaan annaka aan isku barbarigno kooxdeena ciyaarteena si aan ay soo u bedgaleen ama uga badan aad iyo aad u mahadsan tahay cabdishukri iyo maxamed carab oo aan ku wareysanayay bacdalna ay 8 gool dhaliyeen ciyaartii ugu horeysay ee koobka Spring Cup ee ka dhaca Ohio sanad walba xilliga guga waa ciyaaraha soo socdana waan idin soo gudbin doonaa wixii ay kala kulmaan natiijooyin waxaan u rajaynaynaa khayr waa Cabdirasaaq Cali Boos Home Cable TV Ohio ciyaartani waxay dhexmaraysaa labada koox Somali Tigers waa koox aad iyo aad looga yaqaano North America oo dhan waqooyiga Mareykanka sida dalka Canada oo ay laba jeer oo isku xigta ay tagtay finaliska iyo waana kooxda ugu koobabka badan North America marka la yiraahdo waxayna ka dhisan tahay gobolka Minnesota kooxdaas waxay ku dhacaysaa koox ka timid Washington DC ee dalka Mareykanka ciyaartana ay aad iyo aad ciyaar xiiso badan waayo kooxda Tigers dad fara badan ayaa daawada ciyaaraheeda oo aad iyo aad ciyaartoy aad farsamo fiican ayay leeyihiin waana koobkii Ohio ka dhici jiray kooxda Washington DC ayaa iyaduna kooxan dabyarshidayna waxaana la socda ciyaartoy fara badan oo dunida aad looga yaqaan Soomaalida waxa ciyaartoygaas ka mid ah Khalif Rico iyo rag fara badan oo wafti oo soo raacay laakiin waa dhalinyaro yaryar maaha iyagii kuwa ciyaaraya ciyaarta ay socotaa محمد عبد الله فرماجو هدينا دنيا حسبها تيو دلك صوماليا سياسة ديسا والله كتجرا مدن عبد الله فرماجو أي عسمات هذي جديدة أبغى قابضة إسبورتيجا كذا عيا دلك مريكا دلك أوهايو مدن فرماجو مرة نروح كوني سؤال أي نوريديني صوت غير كيني وحنا نقول waxaanu haddana la taaganaynay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya haatanna boqosho ku yimid gobolka Ohio ee dalka Mareykanka mudane maalin dhaweed waxaanu kugula kulannay Minnesota waxaa waraysi ka qaaday wariye Cali Xaraare xagga siyaasadda waxaan maantana aanu ka waraysan doontaa waxa tahay nin isboortiga aad ugu xeel dheer marka nooga waran maxaad halkan boqoshadooda بسم الله الرحمن الرحيم بقشده waxay ahayd waxa lagu casuumay ciyaar sanadeed halkan lagu qabto kubadda cagta oo ay isugu yimaadaan dhowr iyo 10 state oo dhalinyaro ah
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo iyo guddigii ugu casumayba waxaan rajaynayaa in dhamaato ciyaarta maalmaha soo socda si nadiif ah uusan qofna uusan waxba injury ama dhaawac u gaarin ciyaarta waxaa la oran karaa ciyaar saaxiibtinimo kulliba qofba kulliba team yaa guulaysan doona laakiin waxaan rajaynayaa inay wada guulaysteen haddii mar wada yimaadeen kulligooda halka yimaadeen marka kulliba muhiimadu waxa weeye dhalinyarada in maaragtay isku bartaan ayna maxaan ku rahaa ku ciyaar bartaan oo ilaa xitaa marka ugu dambeysa ay noqon karaan xulka qaranka dalkan waa mahadsantahay mudane farmaajo su-aasha kalen ku weydiinaya guddiga qabanqaabinaysa ciyaaraha waxay noo sheegeen in ciyaarta dhici doonto berri toole oo ay wada ciyaari doonaan ciyaartooygii hore ee soomaaliya ka ciyaari jiray la yaqaanay ee torona hadda degan iyo kuwa virginia degan inaad ciyaartaad ka noqon doonto referee ama garsoore marka adigu waxaa tahay garsoore laysan haysta sida noo sheegay maxaa ka jira arrintaas waa sax aniga waxaan ahay wax loo oran jiray arbiter ama garsoore gobolka New York oo macnaha ka qabta ciyaaraha collegeska high schoolska iyo ciyaar kasta oo private ah baadana aan hore u ciyaari jiray rag iyo ciyaar jiray halkan qaarkood ka muslimiin kamid ah xoga ku jeediye kamarada ka muslimiin ninka dadkii jabin jiray kamid aha yaa marka يا رك بدن أو ماشي هنجوا محمود حنا كبحنا نشجع دوسي كان dadkii hore waay aan buu ciyaar jirnay ciyaaraha qaranka ka qayb gashanaa waa kaasa marka sax waay biradu la yiraahdo in aan waxaan jeclahay qofku uu hobby lahaan karo xil kasta soo hayo laakiin uu jeclaan karo ciyaaraha maaragtay noocyada kala duwan marka aniga ciyaarta soccerku waxay tahay favorite waxaan ka ahay garsoore waxaan rajaynaynaa berri toole inaanu aragno adoo dabagaabkaaga wata iyo firimbigii oo haddii red card ama yellow loo baahdo bixin doono waa sax waaye red iyo yellow labada waa la siiyaa insha allah dabagaab ma aqaan soo qaadan doono laakiin kaasina waxa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo aanu ku wareysanay garoonka Springfield ee ku yaala Ohio Columbus oo ka soo qayb galay ciyaaraha uu berri toole noqon doono referee qaban doono ciyaar kamid ah ciyaaraha dhici doona siyaasadda ayaa lagu bartay mar kale bal sportiga berri ayaan arki doona waana mahadsantahay waxaanu maanta ka qayb galnay ciyaarta uu qabanayo maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka yahay garsoore ciyaartaas oo dhex martay askaaris gobolka washington dc iyo ciyaartoygii cuslaaday ee toronto ontario ee dalka canada waxaana ra-iisul wasaarihii ayaa reebdiga haysta isaga ayaa kala hagaya ciyaarta waa garsoore ama garyaqaan ama fiiriwale ama rifii ama xadito hadda kala taqaanid ayaa leysa ayaa ordaya siyaasadda ku barakay waa qaalisay sportii ku jira nin ayuu ka dhigay
daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaartii finalka waxay dhex maraysaa labada kooxood kooxda TC Stars oo ka socota gobolka Minnesota iyo kooxda Tennessee ka timaada magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ciyaartuna waxay ku dhamaatay 4-2 waxa guushii ku raacday guushu nin kaliya ayay raacdaa kooxda TC Stars ee gobolka Minnesota waa dabaaldegayaan ciyaartooyga ayaa marba ninkaas waa Shaafiyare waa ciyaartooy ku dhaawacmay ciyaartii dhex martay kooxda Somali Tigers iyo kooxda TC birihiisi ayuu wataa ciyaartooygii ayaa marba dhinac boodaya waa dabaaldega ayaa socdaa waa congratulations ayaanu leenahay hambalyo ayaanu leenahay ciyaartooyga feeraha qaawan waa master Amayo oo loo yaqaano Cabdiwali Amayo gool qurux badan ka dhaliyay gool ciyaartooygii ayaa iswada hambalyeynaya taageerayaashana hortaagan halkaas ka Arsenal wata waa Cabdiwali waa Liibaan Qodax وعيارتي كوج محمد عرب أي عيارتويجي مربى دينا تاجن وحليه congratulations همبليو آدي نوقف فرحسنا هاي ريد مينيسوتا يو تاجرياشا سفر كدير سوق علي قبل كوهايو يمد هالكن كوبك أي الله ديارنا يا جدّي عيارها أي جوجا أو كوبك صوبندي دونا وحنا مانتا كغيب قادن دونا ciyaaraha abaalmarinta marka la bixin doono ciyaartooy fara badan oo Soomaaliya aad loogu yaqaano waxa kale oo kamid noqon doona dadka bixin doona dadkii sponsoray koobkan oo ay kamid yihiin Master Russell iyo Maxamed Dr. Maxamed wiil Soomaaliyeed oo dhakhtar oo reer Ohio ah waa coachkii ay la turturaya coachkii ay ciyaartooy TC Stars kor u qaadeen TC oo god sida kor ayaa loo wada coachkii ay kor turturayaan waxay leeyihiin wali wada baaldegayaan kaasina waa tababare oo coachkii ay waxay ku daadinayaan cabitaan iyo sharaabyo kala nooc hadday biyo cadadaan lahayd hadday orange ahaan lahayd hadday shaah ahaan lahayd hadday ahaan lahayd wax walba oo nin walba gacanta ku hayay waa lagu daajay hadda orange ayaa lagu shubayaan malaynaya iyo ma aqaninay energy water coachkii waa ka wada mamanti coachkii ayaa lagu daadiyay wuxuu leeyahay coachkii maanta waxay Cabdiqani Xaaji October ay isqabsadeen goolhayaha u babac dhigay kubad kasta oo lagu soo laado ilaa finalskana kooxdiisa soo xambaaray coachkii ayaa saaxiibadiisii xitaa waxay dharka inay ka qoyaan taageerayaasha iyo saaxiibadu ka baqi maayaan waa tahay daawadayaal waxay ahayd taasi ciyaartii ka dhacaysay gobolka Ohio magaalada Columbus oo uu noogu soo tabanayay wariye Cabdirasaaq Cali Boos ciyaartaasi waxa ugu dambeysay waxa ay dhex mareysay labada kooxood oo kala ah Tennessee Nashville oo ay hayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka timid gobolka iyo koox ka tagtay gobolka Minnesota kuwaas oo la yiraahdo TC Star waxay ciyaartii ku soo gabagabowday 4-2 kooxda ciyaarta ku badisay waa TC Star ee gobolka Minnesota bal Cabdirasaaq aan u yara jaleeco Cabdirasaaq kooxdii barnaamijkii waan daawanay waxa joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya bal ciyaaraha waxa jira maanta erayadii waa is wada bedeleen bal erayada isboortiga iska bedelay maxaa lagu dhahaa ciyaarta marka ay ku dhamaato bareejo والله hortaniyo sideedaba luuqad kasto dunida jirta waxa ku dhaca wax loo yaqaan tadawur ama isbedel maanta erayga hadda waxaynu ku wada hadlayno hadii 50 sano kadib dadka dhalan doona waxa laga yaabaa inay macna kale u yaqaanaan marka sideedaba adduunka waxaad maqashaa fadhi ku dirir laakiin waxa jira fadhi ku ciyaar wax la yiraahdo fadhi ku ciyaar waa gartay fadhi ku ciyaarku waxa weeye dad baa meel fariisanaya maqaayad bay fariisanayaan ama meel la isku yimaabita waxa laga sheekeynayaa sports marka erayo ayaa ka soo baxa marka annaguna hadaan nahay wariyaasha sportiga waxa halkaas ayaanu erayada marka suuqiga ah ama loo isticmaalo terminology-ga cusub aanu ka helnaa waxyaabaha kamida hadda su'aasha aad weydiiso haday koox ku dhamaato bareejo ama barbardhac waqtiga hore waxa la oran jiray labadii kooxood bareejo ku dhamaatay ama barbardhac ama waxba iyo waxba ama intaas iyo intaas laakiin hadda waxa la yiraahdaa dhaawac la kala gurto dhaawac la kala gurtay ha waxa wada wixii dagaal inay ku bees garisiyeen waa gartay maadaama aan cidina guul u raacin dhaawac la kala gurtay waa gartay erayga labaad Cabdirasaaq rab inaan ku weydiiyo wax weeye maxaa lagu dhahaa half ground maxaa iska bedelay iyada half groundka waxa weeyaan kooxdu sideedaba garoonka waxay leedahay laba half baajira oo halka xariijintaas dhexe ayaa labada kooxood kala qaybisa marka sida awadeed mar walba kooxda awood badan kooxda kale ayaa garoonkeeda ay culays saaraan oo koodiina laga guuraa kaasa la degaa
marka sida aawadeed haddana waxay yidhaahdaan dhalinyaradu marka ay qof la xifaalaynayo kooxdiisa kale ama leeyahay waa idinka awood badnayn maanta war waa annagii haaf garoonkii kooxdiinii garoonka qaybteedii waa annagii dowlad goboleed ka magacawnay ama ka dhisnay waa gartay marka banooni lagu yiraahdo iitaag ama iisalax maxaa lagu dhahaa iyada taas badanaa waxaa la isticmaalaa garoonka gudihiisa marka lagu jiro ciyaartu hadallo badan baa jiri jiray markii Soomaaliya la joogay banooniga waxaa la oran jiray ta waa ii baas oo kale into baas yar oo xadida waxaa jiri jirtay eelanje waxaa jiri jiray baalki waxaa jirtay iitaag waxa weeye ciyaartooyga badanaa laadka shoodka xoog leh marka uu rabo kubadda in loo salaxo oo shoodo wuxuu oran jiray iitaag markaas walka afuufi jiray banoonigi maartay banooni aad iyo aad u xoog badan ku tuuri jiray goolka kooxda kale oo badanaa goolayaasha ka dhalatay aad u necab yihiin ciyaartooygaas marka loo taago laakiin hadda wuxuu oranaya ciyaartooy waxaad maqlaysaa ku jira ii cabe waa sidii ma garanaysaa qori la cabaynayo oo kale marka inta waa isbedelaan waxyaabo oo erayadii af Soomaaliga ahaa baa dhinaca sportigan hadda conflict ku yeeshay de waxa weeye dagaaladu markay dhaceen iyo meel walba la joogo hadda tusaale ahaan dhalinyarada Mareykan oo joogto oo kale markay isu hanjabeen oo leeyin kooxdaada waa ka awood badanahay laba kooxood oo kale bari ciyaaraya sida liiga la daawado kale sida Ingiriiska meelahaas kooxdaada kale uu leeyahay kooxdaas waa ka badanina wallahi bilaa waa ka adeeganina sida Aldi baan uga soo adeeganina bay oranayaan marka meel walba maaragtay dadkii jooga maaragtay sidaas iyo hadalku isu bedelaa Cabdirasaaq adigu dhankii sportiga aaday xagga iyo banoonigii iyo waxba is ciirsaday aniga miyaad weydiisay waxaan ku diyaariyay kulli waxa inoo haysayo manfar marnide waxaan rabaa inaan ka qosliyo haye laakiin barnaamijkan ku soo wada waxa la dhahaa mataqaan adaa lagu dhahaa sheeka oo aniga maxaa la yiraahdaa adaa arki doona waa sheeka gaaban sheekada daawadayaal waxa inoo diyaariyay Cabdixakiim BR ka qosliyaha North America waa wiil dhalinyaro ah oo aan filayo dad badan inay wada yaqaaniin Cabdirasaaq oo sheekadan ninka diyaariyay waa Cabdixakiim BR na hadii magaaladan habeen uu ka seexdo de waxaan filayaa cid noo bedeshaba inaan helenba waliba ninkaas aad baan u daawadaa cajladihiisa waxaan ka mid ahay dadka aad ku xiiseeya ninkaas waxaad moodaa sheekooyinkiisu dhan inay ku beesgaraysan yihiin nolosha dadka waxa uu tilmaamayaa nin walba markuu sheekeynayo wuxuu is yiraahdaa niyo qof uu yaqaan miyuu ka sheekeynayaa mase aduuba ka sheekeynaya waa gartay macnaha sheekooyinkiisu dhan waxay ku xiran yihiin waxyaabaha nolosha Mareykanka ka dhacda ama dalka ka dhacda waana nin aad iyo aad maskaxda bulshada aan waxa kale oo jira Cabdixakiim BR waxa uu Sam TV u daadiyaa barnaamijka reality show kaasoo ay dad badan codsadeen in loo sii wado maxaa yeelay barnaamij wuxuu noqday ay dadku aad u xiiseeyeen markay guriga joogaan ama ay waqtiyada fasaxa ku jiraan ay waqtigooda ku qaataan barnaamijkaas waxa ayna Sam TV inta badan ka soo dalbadaan in barnaamijka loo sii wado daawadayaal haddaba Sam TV waxaad ka heli kartaa taleefanka lambarkiisu yahay 612-229-5080 waa 229-508 barta YouTube-ka waa Sam TV Minnesota.org oo aad kala socon karto barnaamijyadeeda ayagoo maqal iyo muuqaala Cabdixakiim BR waxaan leeyahay barnaamijka sheekada adaa lagu dhahaa oo maanta inoo soo wada waxaan filayaa inay noqon doonto sheeko yar oo aad noogu qosliso dhamaantaya bal markan Cabdixakiim iyo sheekadiisii aan idin gudbiyo iyo Cabdikariin That's what I'm talking about. Uma tirin. What the guys who are my team, go. What's up? Ya habibi. Thank you very much. waxaa joogo walaalkay Cabdi Gurxan Mohaago jartay asoo jiifaa duqda waxay ku tiri wareedha waa maxay waxaan dhowrka anaa samaysto waasoo Mohaaga la hooyo magaalada ku kacsan cawil buu jartay oo cawilun iyo noo yahay waa kii Sam TV oo kaas baad ku dayanaysaa hadduu dowro bidaar buu samaysanayaa nin hadduu bari ku darnaan jiray waa lagu digtaa qadaafi khalaas nacala abugna cala qashaabiir DJ Thank you very much. Entertainment-ka Soomaaliyeed waxaa ka garan kartaa inuu baaba yahay habarta garaabada gabadheedana waa niis iskiifo. Nacala qasho DJ let me hear that shit.
minneapolis waxaa arkaysaa nin oo bustihiisa wato nin bac madow dhar loogu shubay mid bac dhar loogu shubay waxaa arkaysaa nin naagay ka adag tahay nin maaha taasee bullshit nin ragii naagay ka adag doqon baa naaga ka adag because ninka ragga wuxuu og yahay waxa imaanayo haddii xataa shaqada ay gaarto baraka male wuxuu leenahay dhegeyso meesha America waaye ilmaha ma wada qarsanaa laakiin doqonka hilfo u laaba qumayada DJ ilmahan hadda joogaan dharkooda ma kala yaqaaniin ani back in the days laba surwaalan qabay surwaal cad iyo surwaal madow surwaalka cadka marka noola wadaayo carwada iyo shareemaha noola gelin jiray surwaalka madowna maalinka jimcaha inta kale alfalaaxan ka wata DJ xaaska wuxuu ku tiri ilmaha afaarooda gelin Soomaali weyn afaarada ku jira ilmaha ma u daaha aniga you know wallahi ragga qaarkiis rag badan waxay u yiraahdaan Abdixakiin oo ragga maxaa u xifaalaysaa haddii aad 4 ama 5 caruur haysatay xanaanada caruurta because of gabadha naftirkeeda nafay leedahay bareegay u baahan tahay ilmaha marka adiga haysid adiga dhalay aan nervous ka qaadayo sometimes way ka waalayaan markaas magacooda inta ku gooya muuqooda u yeeraysa diifka daate calal weyne shaama daate iga fadhiiso DJ ga dahablo waay DJ thank you guys xogaa ayamahan waxaad aragteen dhalinyaro badan oo maaragtay oo artistiyaala soo baxeen dhalinyaradaas waa in la caawiyaa mideeda kale waxaa rabaa in halkaa ka sheego xogaa stagekan waxaa qurxiyey Sama TV Cabdikariin Maxamed Cali Timir Awil waxaa jooga suxuuf weyn oo walaalkeen Cali Xaraare iyo dhalinyarada yaalka xaafadda aadan waana mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa hal cilad inaan sheegto oo maaragtay dhalinyaro badan iga xanaaqday oo ah inaan fanaaniinta afaarahooda maalin walba aan galo xumaan ma jirto hebel aniga ma dhaho oo wajiyo xun iyo qalbiyo xun iyo masaamiirta iyo wajigaaga ha gubto waxaan arrintaas ka leeyahay haddii aniga aan necbanahay fanaaniinta waxba uma sheegi lahayn sababta ugu dhalisana caawa waxaan jeclahay inaan waxyar idinkaga taabto programka oo gaaban hadda ka hor aan aroos tagay fanaan aad qaali oo da'yar baa gabar waxay ugu tiri xogaa MC-yan ka ahay oo arooska inaan furo waana arooskii ugu horreeyay iguna dambeeyay markaasay tiri waryaa inta u tagtay wajiyo xunta la hadal heesaas aniga ma doonayna heesaasaan doonaynaa waa ka xumaaday run ahaantii waxaan iga jeclaa fanaaniinta dhan aan leeyahay anigu qof xun maahi haddii laiga xumaaday arrinkaa isagaana ha laiga raalli ahaado DJ xogaa thank you DJ xogaa ayamaha waa soo cayilay saaxiibkay wiilwaal Soomaaliya u tagay dadka Soomaaliya jooga wuu eg yahay ashwaraga that's a bullshit thank you guys waxaana programka ila sameeyay Nawaaxi waxaan duubay quruxdan aan u jeedo sound engineering ka Cabdikariin Sama TV thank you very much guys waa ku soo noqon doonaa xogaa exercise yar oo caata ah DJ halka waxay noogu dhamaaday sheekadii ahayd adaa lagu dhahaa oo inoo daadihinayay Cabdixakiin BR Cabdixakiin aad iyo aad baad u mahadsantahay ayaan ku leeyahay barnaamijkan maanta ka baxaya Sama TV waxa kale oo gacan ka geystay saaxiibkay Cabdi Gurxan Nawaaxi TV oo isagu ka mid ah dadka iyagu aad u taageera Sama TV Cabdi Gurxan waan ku mahad celinayaa barnaamijkii looma kala bixin daawadayaal maanta waxa idin daadihinaya barnaamijka aniga iyo Cabdirasaaq Ali Boos barnaamij soo saaruhu waa Cabdikariin Maxamed Ciise waxa kale oo barnaamijkan gacan ka geystay Maxamed Ciise oo Cali iyo dhinaca farsamadaba waxa kale oo naga taakuleynay dhinaca farsamada Maxamuud Cali Xuseen Timir oo isagu wariyay dhinaca siyaasadda u qaabilsan Sama TV oo maanta dhinaca farsamada isagana aad nooga taakuleynay haddaba loo kala bixi maayo waa Sama TV iyo sabtida daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaan leenahay sabti wanaagsan waxaanu jecelnahay inaanu sii kordhino barnaamijyada ka baxa Sama TV si ay u noqdaan kuwa tayo leh haddaba barnaamijkii weli ma dhammaan sabtida ayaan ku guda jirnaa waxaan rabaa inta waqtiga ka hartay dhinacii fanka inaan idin leexiyo maadaama Cabdixakiin BR sheekadii adaa lagu dhahaa oo saaxiibkii Cabdirasaaqba uu ka qeyliyay Cabdirasaaq sidee u aragtay Cabdixakiin BR والله نكري waxyaabaha uu sheegay waa waxyaabo horta wada jira haye laakiin de ragu maagayay
ragga wamaagayay dumarka inta u hiliyay laakiin qumayo mar dambe yiri marka dumarka waa qumayo lagu yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantahay bal markan dhinacii fanka ayaanu eegaynaa Cabdirasaaq ma jeceshahay inaan ku qatino laba heesoodo daawadayaasheena inay nagula qaataan waqtigooda wallahi dad badan oo guryahooda jooga oo maanta Saturday in heeso yar oo dabacsan iska daawadaan dabcan way iska jeclaan lahayn baan maleynaya waa tahay daawadayaal heesta aan idin soo qaban doono waxaan filayaa ma doonayo inaan idin sheego Cabdikariin ayaan rabaa inuu idinkaga dhigo heesii la yaab kala ee Sama TV ka bixi jiray Cabdikariin aniga iyo daawadayaasheena adiga ayaan ku wada sugaynaa heesa talantaaliga waliba u badiyeen maanta heesa ka bixi doona oo la wada qaadayo talantaaliga waa Cabdirasaaq waxa loo yaqaanaa wada qaadis marka barnaamijkii haddii ay jirto wax tale iyo tusaale ah daawadayaal soo waca taleefanka lambarkiisa 612-229-5080 wixii tale iyo tusaale ah halkaa ayaad ku sheegi kartaan insha allahu tacaala biidnillahi alkariim Cabdikariin waa annaga iyo شانتنا حتيكوت كلاكضو لا إليك شانتنا حتيكوت كلاكضو وريني رهاتيو قلبي سفيك وشوكتا وحلا إليك شانتنا حتيكوت كلاكضو لا إليك شانتنا حتيكوت كلاكضو قبل وحر جعيي مرك قوري ماته قبل وحر جعيي مرك قوري ماته أنكو كيت فريسته مش موتي أرتاي قبل وحر جعيي مرك قوري ماته قبل وحر جعيي مرك قوري ماته أنكو كيت فريسته مش موتي أرتاي
عسانا إيوه كنت الأباح خذ عسانا إيوه من كرود الله وصبره كنت الأباح خذ عسانا إيوه وكنت الأباح خذ عسانا إيوه من كدود الله وصبره كنا حال كانوا مكوين أبيئو كنا حال أبيقون لكوتي بدون كل هاي كانوا مكوين أبيئو كنا حال كانوا مكوين أبيئو كنا حال أبيقون لكوتي بدون كل هاي قبل وحب جعلي مركبوري معتين قبل وحب جعلي مركبوري معتين أنكو جيت فريستين بالمصوت يرتعي قبل وحب جعلي مركبوري معتين قبل وحب جعلي مركبوري معتين أنكو جيت فريستين بالمصوت يرتعي سيدي حاكم وحق